munaasabad martiqaad casho ah oo lagu sii sagootinayo xulka kubadda cagta ee gobolka Sool sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen xulka kale ee kubadda cagta ee gobolka Hawda oo iyagu xilligan u taagan ciyaarta finalka ah ee habeenkii xalay urur siyaasadeedka Nasiye ugu qabtay Hotel City Plaza munaasabad casho sharafa kulankan casho sharafeedka ah ayaa ugu horeyn waxa ka hadashay Sahra Maxamed Cali oo kamid ah madaxda sarsare urur siyaasadeedka Nasiye isla markaana sharaxday ujeedada uu martiqaadkan casho sharafta ah ugu sameeyay ururkooda ciyaartooyga gobolada Sool iyo Hawd in aan martiqaadno anagoo taageernimada kalgacaylkii sacabka faraabadnay ee dhalinyaro badan oo reer Burciid tumaysay ka faa'iideysanayna markaas daraaddeed waxaan halkan soo yeelnay qalbi furan iskax furan iyo la furan ee ku soo dhawaada isla markaas in haddii adgoolada ku laabanaysan mع السلامينو anako ujeedadoodu ay tahay dhalinyarnimo isbarasho fiican taas daraaddeed ay muhiimad ugu weyn caawahan soo yeelnay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nasiye ee gobolka Togdheer Mudane Siciid ayaa isaguna xusay in loo baahan yahay xilligan inay isdhex galaan dhalinyarada dalku ciyaaruhuna ay qayb ka yihiin buur ama si ay yihiin buuri takaliya ciyaartooygu ku midoobi karaan fursadna ay ugu haystaan xilligan aan loo baahan yahay buurin halkaas laga sii wado gudoomiyaasha gobolada Togdheer iyo Hawd Yaasiin Maxamed Cali iyo waliba Jamaal ayaa iyaguna ka marxaati kacay akhlaaq iyo ciyaar wanaag ay sheegeen inay soo bandhigeen ciyaartooyga si ay ku ciyaarayeen garoonka Alamsa Stadium oo ah goobta kaliya ee ugu muhiimsan ee ciyaaruhu ka socdaan labada kabtan ee gobolada Sool iyo Hawd Cabdisalaan iyo waliba Hayba oo kamid ah ciyaartooygii ka sheegnaa ama caanka ka ah garoonkan Alamsay muddadii ay socotay ciyaarta kubadda cagta ee gobolada Somaliland ayaa iyaguna xusay isla markaana ka marxaati kacay inay abaalgud u hayaan dadka reer Togdheer oo ay sheegeen inay kala kulmeen soo dhaweyn iyo waliba taageero aan la soo koobi karin sida ay sheegeen Jamiila oo ka tirsan hay'ad wadani oo caalami oo lagu magacaabo marka magaceeda la soo gaabiyo TAF iyo waliba gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee koobkan gobolada Somaliland Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidda duqay iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolada Hawd iyo Sool ayaa iyaguna koobka gobolada Somaliland ku sifeeyay mid xasuustiisa mudan martiqaadkan oo ay goobjoog ka ahaayeen taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Saleebaan Ducaale Ubaxle Dhagacade iyo waliba Awaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi ayaa waxa ay qayb ka tahay kulamo taxana ah oo toddobaadkii ugu dambeeyay lagu martiqaadayo ciyaaryahanada gobolada Somaliland uga qayb galaya koobkan gobolada dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi ayaa maanta guddoonsiiyay kooxda horyaalka kubadda cagta ee kooxaha heerka koobaad ee gobolka Togdheer ee caafi qalab ciyaareed uu soo gaarsiiyay Mustafa Yaasiin Warsame oo ku magac dheer Rifo hore uga mid ahaan jiray ciyaartooyga kooxda caafi gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo ka hadlay kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Togdheer ayaa ku amaanay Mustafa Rifo kaalmadan uu keenay kooxdiisa caafi naqdiyayna guuldaradii xulka gobolka Togdheer uu kala kulmay ciyaarihii gobolada Somaliland sheegeen inay ka maamul ahaan iyo waliba ka wasaarad ahaanba ay baari doonaan waxyaabihii sababay inuu wareega koowaad ku soo haro ciyaartooyga kubadda cagta ee gobolka Togdheer Mustafa Yaasiin Warsame iyo Rifo ayaa isaguna tilmaamay inuu qalabkan uu keenay caafi ay gacan ka siiyeen shakhsiyaad qurba joog ah oo uu si rasmi ah ugu mahadceliyay tababaraha kooxda caafi Xasan Bootan ayaa isaguna ugu baaqay ciyaartooygiisii hore ee xilligan qurbaha jooga in ay noqdaan buu yiri sida uu hadalka u dhigay Mustafa Rifo kale oo ay taageero u soo muujiyeen kooxdoodii waxa uu tilmaamay tababarahan ilaa in ka badan 50 ciyaaryahan oo kooxdan caafi ka mid ahaa in ay xilligan ku sugan yihiin buuri wadda qaaradaha Yurub iyo waliba America loogana fadhiyo buuri sidii ay tayeyn iyo waxtarba ugu soo sameyn lahaayeen kooxdan caafi iyo waliba kooxaha kale ee heerka koobaad ee gobolka Togdheer si loo helo buuri ciyaartooy dhisan oo matali kara xulka gobolka Togdheer qalabkan oo ka koobnaa kabo sharabaado iyo waliba direysyo ayaa waxa kale oo goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdisatar Sabri telefishinka qaranka Somaliland